maayir ku-xigeenka caasimadda Soomaaliland Hargeysa mudane Cabdicasiis Cagaweyne oo weheliyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa mudane Ibraahim Axmed Raabi ayaa xalay u kuurgalay wadada isku xirta bridge-ka weyn iyo kaalinta basbaas wadadaasi oo ay dayactir ku samaysay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa isla markaasina ay dhigtay laami taasi oo ay soo gabagabaysay xalay 12 habeenimo saacada magaalada Hargeysa wadadan oo dhibaato weyn ku haysay gaadiidka iyo dadweynaha ayaa waxa ka hadlay xubno ku hadlaya magaca dadweynaha adeegsada wadadan oo sheegay inay soo dhaweynayaan adeegyada dowladda hoose ee ku aadan hawlaha wadooyinka isku xidha magaalada Hargeysa cid walibana ay marayso oo biyuhu ay gooyeen oo wadadu baasasku mari waayeen oo gaadiidku mari waayay oo ay madaxda dowladda hoose dhammaanteed ay aragtay isha ku qabatay dabeetana ay carratuulkii dhigtay daraato maantana dadweynuhu ay yaabeen ay yidhaaheen runtii aad ay uga naxeenayeen tan carratuul baa laydinka tegaya waan ogaayo anigu maanta oo dhan baan ka shaqaynaya waa kuwa gacmahay dabeedna waxay yidhaaheen waar carratuul baa looga tegaya runtii dadaal badan bay sameeyeen si degdeg looga gaadhsiiyo oo markiiba ay u dhammaystiraan ayay rabadaan taa ku kaliftay imankana way dhammaystireen waddadu waa doodaa ballaaran xogayaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa mudane Ibraahim Axmed Raabi ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda hoose ay shaqadeedu tahay in had iyo habeen ay u shaqayso dadweynaha shacabkana loo baahan yahay inay garab istaagaan dowladda hoose xogayuhu waxa uu intaasi ku daray in wadooyinka caasimadda Soomaaliland ay dhawaan laga dhigi doono wadooyin tayadoodu aad u sareyso waxaan ku dari doonaa inta kala hadhayaduna ilaa iyo istabta ilaa iyo halka telesom weyn ku dari doonaa insha Allah laakiin inta ciidda weyn joojinayna laakiin wadan waxaan xasuustaa oo ogahay godadkii ka qodnaa baabuurtu sidii ay ugu jeebta dhibaatada haysatay anigu markaan marayo calooshaabay xanuuntaan iyo laftigayga maxaan cid kale ka sheegi doonaa godadkii meesha ay xurfadii ka qodnaa dhibaatada ummadda ka haysatay waan garanayaa alxamdulillah waa taas Soomaaliya wax laga dhigay wada ballaaran laamiya maanta waxaanu bilownay oo barnaamij iyadoo meel xigeenkuna si faahfaahin doono wadadii weyneed ee ahayd muraayada wadanka ayaa maanta waxa bilaabmay qorsheedii wadadaas waxa weeye ka timaadal airportka ilaa iyo halkii soo gadhab saldhigga dhexe gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka caasimadda Soomaaliland Hargeysa mudane Cabdicasiis Cagaweyne oo sheegay qorshayaasha caasimadda Soomaaliland Hargeysa uga qorsheysan arrimaha dhismaha wadooyinka ayaa waxaanu nidhi kara waxa nagala shaqeysaan labada wado ee waaweyn oo halbowlaha sida wadada airportka ka timaada oo aanu u ballan qaadayna in 3 bilood ka yar gudaheed ama 2 bilood ka yar oo wiigan aanu dhagaxeeda dhigana hadii ilaahay waa wiig ka soo socdaanu dhagax dhigana waxa aanu samaynaynaa wadada weyn halkaasaanu waxay mari doontaa wadadaas airportka ka soo baxaysa waa wado weyn oo afar haada oo aad u qurux badan bartani makaanu tan dhignabay dul mari doontaa halkaasay ku kala wacan doonaan saldhigga dhaxana way tagi doontaa halkaana waxay ka tagi doontaa ishaarada waxaanu uga faa'iideysanaynaa wadadaasi markay total marayso sidaana way u wacanaysaa ilaa iyo stadiumkay gelaysaa iyadoo afartaa haada sandaqadaha ku xeeranna ma ogolaan doonno adna horteeda iyadoo ballaaran bay hormaraysaa oo soo balaankiya